waxa xisbiyada mucaaradka ku baaqeen inay maalinta sabtida soo bax balaaran la sameeyo xukuumadda oo waxay ku baaqday wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka xanaanada xooluhuna waxay ku dhawaaqeen iyaguna in aanay la qabanaynin waxaanu leenahay xaq bay u leeyihiin xisbiyadu inay mudaharaadaan ummaddu inay mudaharaado isbedel doonto xaq bay u leeyihiin madaxweyne musabixi waxa ninkii ugu horeeyay xisbiga kulmiye waxyaabihii uu ku hadlayay iyo wuxuu dhowtoona Faysal iyo xirsi iyo cabdiraxmaan midna kama hadal waxyaabihii uu ku hadlayay aynu wada garanayno maanta YouTube-yada ku jirta iyo dagaalkii dhacay midnamo may dhacayn waxa ahayd dagaal rasmi ah iyo mid salmi ah ay isu kala dhigmayeen inta markan soo dhaafo waxaan leeyahay maanta waxay xukuumaddu u diyaar garowday inaanay cidnaba dhaafin haddii nabadgelyada la wada ilaalin waayo oo la isu tanaasuli waayo oo Soomaaliland waxay ahayd lagu ilaalin waayo waxaan leeyahay lagu kala dambayn maayo cid aan hubsidana ma jirto cid aan istifaaci karin ma jirto cid aan dadkooda ilaalin karin waxa iman doona qaar muwaadiniintooda ilaaliya oo booliiska laftooda ka ilaaliya iman doona oo hubaysan oo difaaca oo ka celiya waayo cadow bay hayn ku imaanta dagaalamay cadow rasmi ah bay ku imaanta dagaalamay waxa la heli doona qaar difaaca oo iyaguna wax ka celiya waxaan leeyahay wasiiradii maanta hadlayay dadku xaq bay u leeyihiin aftuubnaan maayaan way mudaharaadayaan gobol walba way ka dhacayaan wasiirka xanaanada xoolaha darajo waxaan leeyahay waxay kuugu wanaagsan xalayto adigu iscasila raganimadaadu taasay ahayd laakiin waxa weeye waxaad sheegtay madaxweynaha iyo maxamed kaahin iyo adiga inaan dhibaydu ku hayn haday beela noqoto haddii rag istilo dee raggu waa kala wada calaamadsanaa dagaalmaanta inooguma horeeyo shalayna waa la istilo doraadna la istilay haddii nabadgelyada gubasho wanaagsan iyo raganimada iyo dawladnimada yar aynu abaabulay la isku ixtiraam waayana gubasho wanaagsan lagu fadhiyo maayo waa la kala qaxi doonaa waa la istili doonaa ninkii ku hari jiray baa ku haraya ninkii ku hari jiray ayaa ku haraya ninkii ku hari jiray inteennii ku hari jirtayna way hari inteennii dee dagaalami jirtayna way dagaalami laakiin waxaanu diyaar u nahay inaanu Soomaaliland la wada leeyahay dadku shuruucda iyo qawaaniinta ay wada leeyeen ku wada shaqeeyaan golayaasha sharci u shaqeeyaan madaxweynuhu sharci u shaqeeyaan haddii la waayo nin walba faraskaaga xumaa faruurta qabsamaan leh nin walba faraskaaga xumaa tan la wada waxaan ku lagu wada heshiin maayo waxaan leeyahay salaadiinta madax dhaqameedyada aqoon-yahanka inta caqliga leh caqliga saliimka leh Soomaaliland ee awalba ka dhiidhiday haddii ay wax ka qaban weydaan arrimaha maanta socda way sii soconayaan nabadda Hargeysa iyo Soomaaliland sida noqon mayso waxay u baahan tahay in marka hore la qabto oo wax laga qabto hadday se fogaato oo dad la laayo oo rasaas nool la isla dhaco qof aan rasaas nool haysan ma jiro marka waxaan leeyahay war nabadda waa loo wada baahan yahay cid waliba nabadda way u baahan tahay laakiin maanta hadday noqoto dibiga gowrac weysha ku daqaatay beesha ay ka soo jeedaan Cabdiraxmaan iyo Faysal xisbiyada mucaaradka musharax madaxweynaha iyo gudoomiyaha beeshanu waxay ka tanaasushay arrimo aad iyo aad u badan dagaalo aad u fara badan oo loo geystay markaynu ka soo qaadno ilaa 93 shirkii Boorama Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu aftuubay dagaalkii ka sokeeyay 94 koob iyo 90kii markii Cabdiraxmaan Tuur madaxtooyada loogu daadanayay tii ugu dambeysay ugu yaraan 4 ama 5 jeer ama 6 jeer oo taariikhda Soomaaliland kulli wada ogtahay oo Sheekh Yasrif wala qirayo ayaa ummadan beeshan culays lagu saaray cid waliba way ogtahay taariikhda dheer inta leeg haddii ay u adkaysatay waxaan u leeyahay beesha inta in leeg waxa u adkaysatay ma weydin khasaare weydin magaxumo weydin dulinimo inta in ka badan hadda dhimatay geeridu marbay nolosha dhaantaa baa leeyahay haddii inta soo jira aynu tanaasulay oo reer Soomaaliland u tanaasulay oo walaaladeen u tanaasulay oo mar walba u baydhnay oo inagu tii wanaagsaneed ay ku faa'iideeyeen qaadanay haddii layna garan waayeen inaguna maanta garan mayno haddii lagu cadaadiyo in maanta lagu sadqeeyo siyaasadda Soomaaliland
oo doraad lagu sadqeeyey oo tii ka horreysay lagu sadqeeyey oo tii ka hesheysay lagu sadqeeyey oo markhaati leedahay oo cid gaaruun iska haysato Somaliland kuma soconayso kamana dambaynayso haddii la isleeyahay labadooday ka dambaynaysaa oo waa lagu sadqeynayaa hadduu ina sulub hor kacayo iyo hadduu mid kale hor kacayo iyo mid la midi oo waxba qaban hadduu hor kacayo wallahi inaanay ka dambaynin hadday iyaga maanta leeysla ku sadqeeya oo beesha aanu ka soo jeedno xaq baanu leenahay inaanu ka hadallo siyaasadeeda iyo horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda waa beeshaanu ka soo baxnay xildhibaanadii ka soo baxay baan nahay hadday khaldan yihiin inaan qabanan xaq u leenahay hadday saxan yihiin inaan iskarab taagnaan hadhe haddii la yidhaahdo siyaasadda beeshaasu ma soconayso oo loo heshiiyo yaa waxa weeye waxay noqonaysaa mid laga shalaayay noqonaysaa kamana dambayn doonto maanta weerar cad buu ahaa beritana weerar cad buu noqonayaa ha loo diyaar garoobo nabadda ninkii diida isagaa meel wax koog isaga ayaa meel wax koog maanta wixii dhacay jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay gaar ahaan caasimadda waa arkayseenoo runtii waxay ahayd fawdo ama rabshad ay gacanteeda ku abuurtay xukuumaddu iyagoo musharaxiintii iyo gudoomiyaashii xisbiyada mas'uuliyiintii xisbiyada iyo xildhibaanadiiba ay si nabadgelyo ah u joogaan fagaaraha oo ay doonayaan inay bulshadoodii fariin gaarsiiyaan in ciidankii qaranka oo lagu soo labahay ciidan maleeshiyaad runtii aan odhan karo waxaan maleeshiyaad u leeyahay falalkii ay samaynayeen iyo dhagaxii ay tuurayeen iyo hablihii ay beerka ka laadayeen dee ma ahayn wixii asluubtii iyo anshixii lagu yaqaanay askarigeenna ama bilayskeenna taas waxay kuu muujinaysaa in xukuumadda haddan joogtaa ay qaadatay tallaabo ah in ay mashaakil kasta oo Soomaaliland haysta mashaakil inagu kordhiso tani waxay inoo muujinaysaa in iyadu sharcigii ay gacanteeda ku duuduubtay ay doonayso amniga Soomaalilandna inay gacanta ku duuduubto falka maanta dhacay waxay ku muujinaysaa in lala beegsanayay mas'uuliyiintii qarankan xilalka muhiimka ka haysay shalayna ka haysay xabadda xildhibaanka ku dhacday ragga qaar maanta ku sheegayaan inay jiingadi jartay iyadoo rasaas nool laga soo saaray oo isbitaaladu ka soo saareen cidda lala beegsanayay waxay ahayd mas'uuliyiinta shacbigu shalayna doortay ee kalsoonida qolkiiba 42 ay siiyeen maantana diyaarka weyn ay kalsooni badan siiyaan xabadda xildhibaan ku dhacday waxay ku dhacday waxa weeye bulshada Soomaaliland bay ku dhacday sharcigeennii bay ku dhacday taliyaha iyo mas'uuliyiinta ciidanka qaranka waxaan leenahay waxa la idin diray waxa weeye ilaalinta sharciga iyo fulinta sharciga laakiinse in si fawda ah iyo si milga ka baxa in loola beegsado dad gaar ah ama mas'uuliyiin gaar ah waxay muujinaysaa in Soomaaliland lagu xidhay madfac xagal 90 u jeega madaaficda marka xagal 90 loo jeedo waxa loo jeedaa inuu gubo isla madfaca laftigiisa maanta xagal 90 u jeediseen runtii waxaan leeyahay Soomaaliland kumay iman shakhsiyaad waxay ku timi cududda iyo xoogga shacabka waxa ku aasan ama dhiigeedu u daadiyay intaasoo kun oo mujaahid intaasoo kun oo naafa baa jooga intaasoo kun oo agogood baa eeganaya kursiga joogideeda dhiig laguma joojiyo kalsooni shacab ayaa lagu joojiyay baan leenahay madaxweyne waxaan leenahay dadku waxay doonayaan waxa weeye sifa sharciya baad ku fuushay kursiga oo lagu saaray oo bulshadii ku dooratay iyo kuwa aan ku dooraynba ay kugu aqbaleen inaad xukunto oo hantidii iyo ciidankii qarankan ee la wada lahaa aad ku maamusho haddii inta aad kalsoonideeda weydo waxay ku ekayd inaad si sharaf leh oo milgale aad kursiga iyo waqtigiisa u banayso laakiinse inaad dhiig ku joojiso ama ku fadhido runtii kulama ekayn waxaan leenahay ciidanka qaranku waa ciidankeennii wuxuu ka yimi waa bulshadanu qorigu sitaana waa qorigii ay bulshadani lahaydun hanti gaar oo dawladnimada cid gaari lahayd ma jirto maanta haddii fawdadaasi bilaabanto waxaynu ku noqon doonnaa meel aynaan ka soo noqonayn waxaan aad ugu boorinaynaa inaad ka noqoto waddadii sharciga ahayd ee gaadhigu kaala baxay aad ku soo noqoto ku faa'iidi maysid tallaabooyinka noocan ah mudaharaadku waa rabitaan shacbi
oo dadku ku muujinayaan daroonkooda runtii waxaanu leenahay waa wadaysaan bulshadu way wadaysaa iyadoo muujinaysa oo sidaas luubaysan u muujinaysa ayay wadaysaa ninkii ay dhibayso ha istiyaariyo wasiirada maanta hadlayay waxaa ku jira wasiir Siciid Sulub wuxuu sheegay xilligii kulmiye ayaan marka hor joogsanayo kelmadii maalinta aan idhi ayaan maantana qolada wadanin leenahay buu la soo istaagay maalintaana kelmadda tiri qalad bay ahayd maantana kelmadda aad leedahay waa qalad mar walba waxaad ka hor imanaysaa rabitaanka iyo doonista shacabka maalin baa iman doonta aad qiri doonto tallaabooyinka aad qaadaysay aad maanta iyo maalintii horeba sheegayso aad ka markhaati furi doonto oo odhan doonto qalad baan sameeyey